السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan nagala socotaani waa Tayo Building Construction and Design qofkeedin la hadlayna waa anigu Axmed Xasan ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. dabcan muuqaalkan ama cashirkan waxaan ku sii eegi doonaa cashirkeennii hore noo sii socday inuu daba socdaa waana sida loo sameeyo kitchenka ama jikada. okay cashirkeennii u dambeeyay waxaan ku soo dhignay labadan object oo kala ah shawladii iyo farxalki. okay iyo sidoo kale qaybtan hoose oo aan samaysanay. okay qaybtan hoose wax saas kulli uga ma harsana inuu gaarsiimo malaynayo sababtoo waxa ka maqan handalladii yareed xagaas iyo xaga lagu dhadhajinay ayaa ka dhiman kuwaana dhimala gadaal baan ka wada raacin doonaa wixii dhiman oo dhan laakiin hadda objectiyadeeni ayaan xagan iska soo dul saaran doonaa tusaale xagan objectiyada soo dhigi doonaa xagana miisas kale sidoo kale talaajad baan soo gelinaa. okay qof walba wuxuu rabo soo gashan karaa objectiska. okay marka for example hadda maxaan soo dhignaa okay objectigeena aan tagna marka objectigeena aan tagna okay kitchen. okay for example tan aan soo dhigaynaa marka cabinet base cooktop waxa weeyaan waa iska kulayliso kale cuntooyinka ayaan inta badan la gashtaa. okay taas soo gelina. okay intaana soo gelin xagan soo gelina salaam xagan dhigna xagan aan dhignaa for example. okay intaana soo gelin waxaan rabnaa xagan inaan labadan wall inaan drag gareyno horta wallkan iyo kan right click move drag copy. okay labadan wall ayaan drag gareynaa horta waan drag gareynaa. okay wakaas xaan ku drag gareynay xagaasan ku drag gareynaa xogaa hore u soo yar durki. okay kan las sooma. okay wakaas marka waxaan rabnaa inaan xagaas dhex gelino. maxaan dhex gelinaa objectigii hadda aan idin tusay. okay horta intaanan dhex gelinin kan colorkiisa aan iska bedelno isagana wood aan ka dhigno colorkiisa. okay sababtoo ah tani waxa weeyaan baan idin leeyahay waa tii lagu design gareeyay designka adaa iska objectiyada. okay maxaan ka dhignaa wood. okay xagana soo gashanaa objectiga hadda idin sheegay. okay objective baan ku noqonaynaa aaway waa tan weeyaan sooma. okay dhulka imsaan kor uga qaadnaa 1 meter baan kor uga qaadinaa. okay heightkeeda wax oo dhanba sidaasaan ku deynaa. okay wakaas sooma kadib gidaarkeenana la eegaysiinaa marka xagan soo jiid. okay araw yar dragare control D hore on yar dragareyna. okay horeyna wujid ilaa xagan gaarsiinaa ilaa xagaasan gaarsiinaa. okay 3D da marka aan soo eegin wakaas kulaylisadan hadda soo gelinaa taas iyada. okay korkaan rabnaa inaan ka xidhno soo slab yar baan saarinaa dhimal slab yar baan saarinaa. okay thicknesskiisa 0.5. okay for example 2 meter bakuda. okay kadib xagee la xagan ilaa xagaas rectangularkaas ku deena. okay wakaas sooma. okay intan gudaha una saarno intaasoo na dhex gelinaba yeah I think sidana dhaanto sooma. yes so irjiyadan islaabkan waxaan ka dhigaynaa wood waayo waxaan rabnaa inay isku wada ekaadaan dhammaan. okay irji surface-ka waxaan ka dhigaynaa wood baan ka dhigaynaa isagana muhiimadan ama sababtan uga dhigay waxay tahay xaggaas inta yar baan rabay inay woodka u ekaato. okay wakaas okay marka hadda waxaan rabnaa inaan xaggan soo dhigno miisas iyo waxyaaba noocaasa. okay objective baan ku noqonaa sorry objective ayaan teginaa maxaan soo dhignaa kabadhaan baan ka wadaa kabadhaantan ayaan dhiginaa for example kamba kan dhabalka no kuwa cornerka la dhigaan horta dhiganaa corner waa kan oo kale kaas oo kale weeyaan xagaan dhignaa xagaasaan dhiganaa. okay